wasaaradda waxbarashada Jubaland ayaa deegaanka Buul gaduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo ka dhagax dhigtay iskuul cusub. Waxa warbixintaasi inoo haya wariyaheena Mas'uud Cabdullaahi Aadan. burburkii dalka soo gaaray wuxuu saameyn ku yeeshay wax kasta oo dalka uu lahaan jiray. kaliya kuma koobna barakac iyo Soomaali badan oo qaxooti noqotay. wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha aasaasiga ah ma jirin cid isku xil saartay oo badbaadisay hantida qaranka. sidii dawladii ay gacanta uga baxday ayaa waxa sidoo kale gacanta ka baxay waxbarashadii, caafimaadka iyo wax walba oo muhiim u ahaa ummadda Soomaaliyeed. hadda ay dadka Soomaaliyeed ay ku hanweyn yihiin in mar kale ay ka soo kabtaan dib u dhici iyo horumar la'aantii dalka ka jirtay 25 sano ee la soo dhaafay ayaa waxay ku howlan yihiin bulshada iyo dawladdu xoojinta adeegyada aasaasiga. deegaanka Buul gaduud wuxuu ka mid yahay deegaanada aadka u dib dhacay ee saameynta weyn ay ku yeelatay dawladii burburkeedii. muddadii dawlad la'aanta dalka ay ka jirtay gaar ahaan deegaanadan ma aysan helin dhammaan xarumihii aasaasiga ah ee nolosha aadanaha. Buul gaduud waxa ku yaal iskuul ka samaysan baco iyo jiingad aan xoog mudnayn, kaasoo inta badan ardaydii wax ka dhigan jirtay iskuulkan ay iskaga tageen. waxaana ugu yaraan iskuulkani wax ka baran jiray 800 arday, waxaase hadda wax ka barta oo kaliya 350 arday. dawlad goboleedka Jubaland oo ka duuleysa qorshaha horumarinta degmooyinka iyo deegaanada iyo sare u qaadida waxbarashada ayaa maanta dhagax dhigtay iskuul hoose dhexe oo dawladda ugu talagashay ardayda deegaanadan ku nool. gudoomiyaha degmada Kismaayo mudane Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajile iyo xildhibaan Xuseen Axmed Xirsi ayaa sheegay in dawladda ay wado qorshe lagu horumarinayo waxbarashada, waxayna qurba joogta Jubaland ugu baaqeen in ay gacan ka geystaan dhismaha iskuulkan. iskooladii baa saasa, caafimaadkii baa saasa, wax walba waa sidaa. meel eber laga bilaabaya tuuladii maanta ee laga xoreeyo shabaab waxay u baahan tahay wax kasta oo bilaadan ku baahan yahay. waxaan ka rajaynaynaa markay idinku inaad isxilqaantaan kuwan hadda intaan gacanta ka geystay waa u mahadcelinaynaa, si weyn baan ugu mahadcelinaynaa. insha Allah reer Buul gaduudna waxaan u sheegaynaa tabar baan jirin laydinma ilowsana. marar hore badanna waa idin nimi, wax badanna waa isniri. maalin dhoweydna waa laydin keenay bugaag iyo qalmaan iyo waxba laydin keenay. haddana waxa laydin sameeyaa iskoolkii. marka aad eegtaan 350 arday ma haystaan musqulo ay isticmaalaan. deer ka xadido maartay dhibaato ama maartay in lagu soo xadgudbo iskuulku ma lahan. waa aas dugsiga hoose dhexe Buul gaduud ayaan maanta dhagax dhigaynaa. waxaa iska kaashaday oo gacan ka geystay jaaliyadda Jubaland ee Denver, Colorado, USA iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubaland. awood waxaan u helnay hadda 8 fasal inaan dhisno. 8 fasal oo u bedeli doono 3 jiingad aad aragtaan in ardayda ay u helaan meel ay wax ku dhigtaan. kuraastii iyo agabkii kale ee loo baahnaa oo Shaafi Rabbi Kahin gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland ayaa sheegay in ka ganacsata ahaan ayaga oo kaashanaya qurba joogta Jubaland in ay iskuulkan dhisi doonaan. anaga rug ganacsi ahaan contribution qaybtanada aan bixinaynaa oo aan ka ballan qaadnay bila ka hor degmadan Buul gaduud. waxaan rajaynaynaa in ay noqoto bilow fiican oo waxa ugu baahi badan maanta degmadan ay waxbarashadu iyo deegaankan ay ka mid tahay. wasiir waa mahadsan tahay. wasaaradda waxbarashadu dhaqaaq fara badan iyo dadaal fara badan baad samayseen. Allah idinku garab galo. maantana dhagax dhigan mabruuq baan leenahay. ilaahay ku barakaysanay noo dhigo. waxaan rajaynaynaa caruurtan meesha aad aragtaan waa caruurteeni. qolkan ma aqaano waa ciida banaanka meesha ay fadhiyaan waa ciidii wad aragtaan. kan waa sidoo kale kaas wax yar oo salli aad moodid baa ka muuqda. wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada Jubaland Axmed Cabdirasaaq Handal ayaa sheegay in dawladdu ay ka shaqayn doonto sidii loo bixin lahaa mushaaraadka ay ku shaqayn doonaan macallimiinta wax ka dhigi doona iskuulka hoose dhexe sare ee Buul gaduud. ka wasaarad ahaan waxaan wax badan yabo ama qayladaan u sameynay deegaanada guud ahaan Jubaland, gaar ahaan deegaanada magaalada aan joogno ku xeeran ee aan baahiyaha waxbarasho ka jirin. aad bay noo farxad gelinaysaa in aan dhismahan sidaan u eg aan loo bedelo dhisme 8 fasal ah oo runtii ay u dhameystirnaan doonaan garoonkii kubadda lagu ciyaarayay noocyadii kala duwanaa ha noqoto musqulihii aan maamulkii maamulayaasha iyo macallimiinta isku fasalada ay yani ardayda ugu adeegi lahaayeen.
waxaan rajaynaynaa sanadka cusub wasaaraddu inay keeni doonto mushahar joogto ah oo uu maamuluhu helo iyo macallimiin 6 ka badan oo aan rajaynayno aan u qoondaynay sanadka cusub marka maamule waxaan laga sugayaa iskuulkan markii uu dhameystirmo waxay noqon doontaa waajibaad wasaaradda toos ay kugula xisaabtanto waxaan rajaynaynaa inaad ilaashan doontaan dhulka aanu ka sugayno deegaanka inuu ku deeqo oo gudoomiyaha degmada uu nagala joogana dhulka ugu yar aan ka rabno dhulka aan dhagax dhignay waa 500 si ay caruurtu u helaan deegaan dhameystiran oo wax kasta looga fuliyo Mas'uud Cabdullaahi Aadan Jubbaland TV magaalada Kismaayo